raggaa waxaa ku jira madaxweyne ninka gobolka Sanaag in badan nabadda ka soo shaqeeyay mudane Ismaaciil Xaaji Nuur caruurtiisa baa ku jirta maayarkii ceergaba caruurtiisa ayaa inta la qabtay hatta xabsiyada jeelasha kala sharaf badan waxa lagu xidhay caruurtiisa lagu xidhay jeelka Mandheera waa nimankii caruurta margixisa waxaan isweydiinayaa nimankii maayarada ahaa ee madaxda ahaa gobolada magaalooyinka haystay mar haddii caruurtooda saa loo gelayo dadka shacabka caruurtooda saa loo gelayo wax kale khamiiska maanta uma soo xidhan inaan wacdiyo wax la dhigi waansanaya ayaa la waaniyaa qofna lagama quusto meesha maxaadada soo fadhiisto cirro waxaan ku leeyahay ka cabso dulmiga jooji xoriyada qolka diidi waa ku sidii bal muqaalka la garee ay soogin naga la garee shirkade dhageysanayso ma aanan islahayn Ismaaciil Xaaji Nuur oo sariir saaran oo xaalad caafimaad darro u maqan caruurtiisii iyo gurigiisii baa la qafaalanaya oo la afduubanaya dumarkii reer ceergaba waxay ku yiraahdeen wallahi xadiis bi akhriyin si wanaagsan gobol waxay ku yiraahdeen maanta ismaan lahayn maayarkii ceergabo oo sariir saaran oo xanuunkiisii dhaqtar loo qaaday oo la leeyahay ma ka baxday ma ku jirtaa in gurigiisii caruurtiisii loo daba maro oo waliba Mandheera lagu xiro ma aanan filayn aba ma filayn wallahi ma filayn meesha dadkii xanuunsanaya caruurtooda la weerarayo maxaad u malaysaa dadka caafimaad qaba caruurtooda loo geliyay sidoo kalena meesha raggii xisbiga wadani ka tirsanaa maayarka ceergabo waa raggii xisbiga wadani lacag iyo duwiye maalba duldhigay wadani ku tirsan meesha raggii xisbiga wadani ka tirsanaa caruurtooda la weerarayo maxaad u waranaysaa ragga xisbiga kulmiye ka tirsan caruurtooda loo geliyay oo barigi maxaa la jirteen waxba la qafaash qafaalashada war qafaalashada ma kare qafaalashada ilmaada reer joojiya oo ilaahay ka cabsada meena dad islaam ahay war ilaahay meena dad islaam ahay ya waxaan leeyahay caruurta maayarka ceergabaha la sii daayo si degdeg ah loo sii daayo Cabdi Raxmaan laba shay baan ku xasuusinaya waxaad oga jirtay dalka hadaan imaado dalku nabadgelyo noqonaya dagaal anigu ma dagaalamayo dagaal ma ogol bad oo jirto dagaalkii muu istaaga jawaabtu waa maya wati ceergaba la isku dhigay wati buqladka la isku dhigay wati qordhugu la isku dhigay qodobka labaad ee aad oga jirtay wuxuu ahaa xoriyada qolka waan ilaalinayaa oo qofkii hadla la xiri maayo cid kale iska daa maayaradii xisbiga wadani ka tirsanaa bad caruurooda Mandheera geys maxaad u malaysaa kulmiye ka tirsan tolo hargeysa tan ma dadsadii galaysa waa cid kastoo iska fahmay aniga waxaan ku leeyahay ilaahay ka cabso ya khamiiska wax kale soo xinaad ku waaniyo ku wacdiyo waxa la sankaaga qurmeen lama gooyee ya madaxweynaha iyo saxda lagama quustan anigu ku taraya ma garato madaxweyne soo daan markaa degdeg soo daa taasaan leeyahay muqaalka inoo la garaya waxaan kala doonayaa inaan saxo wasiiradan ugu jeclay Soomaaliland dowladan Cabdiraxmaan Cumar hal wasiir baan taageersanaa wasiirka warfaafinta Soomaaliland ولين هذا اللي يقال له خالد بكدعي خالد كدعي محوي ما أنت واحد فريق كبحية ودن كي الصومالي اللي أوريتر خاصة عاصمة دي سي مقدشو يا ما أنت حسن فريق فرها جي كبر بريس وكبحيس دولة دي وحيري عاصمة دي مقدشو هي فرها كبحيس حسن الشيخ محمودو كمدة اللي مدي حسين راعي فرصة دولة دي الصومالي ده هذا كان مدح لوجا هيبقى فرها هنا كبح دولة جولاعية دول كمدة صاد بخلطها وحي كل الدولة دي الصومالي ده حال كان مدح ده واحد ayaa laga walaacsan in faraha ay ka baxdo dowladnimada Soomaaliyeed adalka madaxda uga hayb baxay faraha inay ka baxdo laga walaacaya garta dowladda Soomaaliya ayaa laga walaacsan in faraha ka baxdo garta waddanka Soomaaliya laakiin dowladnimada Soomaalidu way washata Soomaaliyeed madaxweyne ma garanayo hadalka mid ka soo fakaday mise wad ugu tala gashay waxaad qiraysaa in Xasan Sheekh Maxamed shata Soomaaliyeed uu yahay madaxweyne wax la dowladnimada Soomaalidu way waxaan ku leeyahay mudane wasiirka warfaafinta waata waliba wasiirada la doonayo inay hadalka shaandheeyaan eegaan ma garat halka ka noqo ayaan kula tan leeyahay waliba khaladkaas waa dhacay mid daba dib soo noqon baa leeyahay dowlad Soomaaliya leedahay ma jirto laakiin dowlad Soomaaliya leedahay jirta ya taas oo way ga talo marka koowaad waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa in madaxweynaha Soomaaliland ومستشمع مقالة هالكسمات كنت كني. إنها جمهورية الصوماليلاند الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عرو أي صلاة عيد الفطر كلته كذا شعب كا مستشمع وين مقالة هرجيسا.
halka madaxweynayaasha dhigiisa ka Jabuuti ka maartay Muqdisho labaduba ya madaxtooyada dhexdeeda ku tukanayeen oo wax ilaahay lagu mahadnaqo waa qayb nabadgelyo ka turjumaysa weeyeen shacabka dhexdiisa ayaa sida ay muuqanayso kula tukanayeen mid labaad ilaahay wax ilaahay lagu mahadnaqaa waxay tahay in madaxweynaha Somaliland uu shacabkii reer Hargeysa kuwii loo soo galay iyadoo la baaray salaan uu ka gudoomayo madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa salaada kadib xarunta qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu ku qaabilay shacabka reer Hargeysa si uu ula qaybsado farxadda Ciidul Fidriga awgeed halka madaxweynayaasha dhigiisa ka Soomaaliya ka Jabuuti iyaguna madaxtooyada waan dhaafino shakhsi kaliya uu soo galo iyagoo ka cabsi qaba suuliga ixtiraamka galiya la galaa sidoo kale waxa ilaahay wax lagu mahadnaqaa in madaxweynihii hore Muuse Biixi Cabdi uu shacabka reer Hargeysa uu la tukaday qaab baa odhan jiray waa nin godobeysan waa nin dhibaato geystay ma nin godobeysan ayaa shacabkiisa la tukadaa sida halka kaaga muuqanaysa waliba shacabkiisa uu salaamayaa waa lagu soo ururay ya ma nin godob galay ama cid ka baqaya waa shacabkiisa saa u dhex gala jawaabtoo maya guud ahaan wixii laga shubi jiray oo dhami inay been ahaayeen bay soo baxday may garatay qofka waxa yar maartay ilaahay ugu mahad celiya waxa weyn ilaahay ugu mahad celiya nabadgelyo ilaahay nasi aan dadka dhigeena aan haysanin oo waliba ay mararka qaar caawiyaan argagixisay nagu sheegano argagixisada ahaanay in ilaahay ugu mahad noqono oo waliba adkaysano nabadgelyadaas taas ayaan ku talinaya madaxweynaha Somaliland waxa la madaxweyne boqolkii mabad wixii qabatay baarlamaanka mar hore maxaa dhacay ma waxaad u sheegtad garan weyd wali waan ku sugaynaa baarlamaanka ku sugayay soo wali ma ogid boqolkii mabad ku dhamaaday ma ogid ya Muuse Biixi boqolkii mabad hore wuxuu qabtay baarlamaanka hoostiisa ka sheegay sidoo kale madaxweynaha hore Siinaay Allahu naxariistay boqolkii mabad ku jeediyay adigana waa laga sugaya وهاتي العلا وحقرتي هاتي هذا حقبة نمية أقل كذا يسكتشو لكن شعب كذا سمع الله توشك ويقطر يا ما تروح الخميس كان صحيح يعني ما تصحيح من الحوالي سمع الله عقل عدي وعلى القف نور لقى ما قوسته سيدو خلاص لمن حكم هنا جسن كذا قرمي لقى ما قويه مدحونها قياس صحيحتي لقى ما قوسته ولا كعياه مدام واحد حقلايا dalka u kac oo waliba fursadaha banaanaday iyo dunida caalamka saayna sheegaysa fursadahan in hor yaala iyo dunida ninka inoo jilicsan inooga faa'iiday waxa marka hore kugu hambaleenaya qodobada xalaad jeedisay ee aad ku tuftay Xasan Sheekh Maxamuud waa inkastoo shukri ala wajibka gutaadana wixii wanaagsan qabto kugu hambaleenaya ya muuqaalka inoo la gareeyo inoo sheer gareeya wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh